بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barnaamijka taxanaha siyaasadda iyo dowladnimada oo ah barnaamij taxane ah oo aan ku qaadaa dhigi doono siyaasadda iyo dowladaha caalamka ayaan maanta qaybtiisa koowaad ku eegaynaa farqiga u dhaxeeya qowmiyad iyo qaran ama ummadda. qowmiyad marka laga hadlayo ama la qeexayo waxaa loola jeedaa koox kasta ama bulsho kasta oo ku hadasha hal luuqad oo gaar ah isla markaasina wadaagta dhaqan iyo caadooyin. balse qaran ama ummad waxaa loola jeedaa ummad iyo bulsho kasta oo ka wada tirsan hal dowlad ama hal dal. haddaba marka la joogo qaran ama ummad oo afka ingiriiska lagu yiraahdo nation, muhiim ma ahan kala duwanaanshaha diimaha, firqooyinka iyo luuqadaha qarankaasi leeyahay. tusaale ahaan Ameerika ama Mareykanka oo dadkiisu ay ku kala duwan yihiin qowmiyad, diin iyo luuqad, haddana Mareykanka waxaa loogu yeeraa qaranka Ameerika sababtoo ah dadyoogaasi waxay ka wada tirsan yihiin hal wadan oo federaal ah. sidoo kale Faransiiska, Spain, Hindiya, Shiinaha, Turkiya iyo dalal kale oo dadkiisu ay ku kala duwan yihiin afka iyo taariikh ahaanba, dhammaantood waxaa loogu yeeraa qaran ama ummad sababtoo ah waxay ku midaysan yihiin hal dowladda. marka ummad ama qaran way ka weyn tahay qowmiyadda marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda iyo dowladnimada casriga ee maanta dunida ku dhaqanto. qaran ama ummad waxaa ku jiri karaa dhowr qowmiyadood oo kala duwan oo xitaa ay ku kala duwan yihiin afka iyo diinta, laakiin waxa ay ku midaysan yihiin hal dowlad, dal, taariikh iyo danaha guud. sidoo kale carabtu waa ummado iyo qowmiyado kala duwan. waa sababta mararka qaar loo dhihi karo carabtu ma aha ummad keliya iyo qaran keliya midna, inkastoo ay hal af oo carabi ay ku wada hadlaan dadyoogaasi sababtoo ah waa dowlado iyo dalal kala duwan. mid walibana waxa uu leeyahay taariikh qaran oo gaar ah iyo weliba dhaqan iyo masaalix gaar ah. laakiin dal waliba oo dadkiisu ay ku hadlaan afka carabiga waxa uu ka tirsan yahay qowmiyadda carabta. waxaynu ka qaadan karnaa arrintaasi in carabtu ay isku rogi karto qaran keliya haddii ay awoodaan inay dhisaan hal dowladda. haddaba carabtu hadda waa wadamo kala duwan oo waxaa jira ummado ama qaran ay ka mid yihiin Masaarida, Algeria, Ciraaq, Suuriya iyo dowlado kale oo badan oo carbeed oo ka tirsan ururka jaamacadda carabta. haddii aan soo xoorino farqiga u dhaxeeya qaran iyo qowmiyad, qaran waxaa loola jeedaa bulsho ku midowday hal dal oo leh dowlad madax bannaan. ha yeeshee qowmiyad waxaa loola jeedaa bulsho ku hadasha hal luuqad ama af oo degan hal wadan ama ka badan. qowmiyadaha dunida oo ay kala geeyeen dowladnimada casriga ah ayaga oo wadaaga af, diin iyo dhul waxaa ka mid ah dadyooga Kurdida iyo Soomaalida oo yeelan kartay mid waliba hal dowlad, balse ay kala geeyeen gumaysaha kala qaybiyey dhulka Carabta, Afrika iyo Muslimka si qowmiyadahaasi aysan u yeelan qaran mid ah oo xoog badan. dhanka kale marka dhanka diinta islaamka laga eego ereyga ummad macno badan ayuu leeyahay, balse marka aan ka eegno dhinaca siyaasadda islaamiga ah waxaa loola jeedaa ummadda muslimka oo ah ummad keliya ayaga oo wadaaga caqiidada islaamka. wax macno ahina uma lahan kala duwanaanshaha qowmiyadaha, dowladaha iyo quruumaha hadda dunida ka jira. sidaasi darteed xildheerayaasha cilmiga siyaasadda ee caalamka ayaa rumaysan haddii ay midoobaan dowladaha muslimiinta oo dhan in ay noqon karaan qaran ama ummad ama dowlad xoog badan oo wax ka bedeli karta xaaladda haatan uu ku sugan yahay caalamka haddii ay noqon lahayd awood dhaqaale iyo mid militariba. waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa qaybta koowaad ee taxanaha barnaamijka siyaasadda iyo dowladnimada. waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.